هدي لو يراهدو عدالة الصومالية تال صور كبحي أوقع محل إلهي إنا وحدث كان أبا صور كان ميرقشو لعل هدي لو يديو عدالة الصومالية سيطحك أظن حلين صور كادر وأنا كي قولي حاسكيسة يعلميسة والله عدين يقصل يصوتها ولا أنا رهبر قدري iyo kii gabadhiisa la gubay oo maxkamadda dhexdeeda ku ooyay sababtoo ah waa sheekhaal miskiin daase intaas kaga filan qeexida cadaaladda muqdisho taala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh qubarakaatu waxaan ku qaadaa dhigi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud xasan cunay ama xasan ayax hadba ka u taqaan ayaa liqay MCH kii degmada hodan oo mulisooyinka iyo dhallaanka iyo caruurta lagu daybayay laguna quudinayay sidoo kale qodobada waxaan ku dul istaagi doonaa safiirka UK oo afartii bisha ka dagay Garowe waa UK London to Garowe iyo qodobadii ka soo baxay oo xasan loogu darnaaday ayadana waa dul istaagi doonaa qodobka saddexaad oo aan dul istaagay waxa weeye haddii lagu weydiiyo hal su'aal oo ah Soomaaliya marka aad joogtid sidee u eg tahay cadaaladdu maxaa ku jawaabi lahayd jawaabteeda ayaan ku hayaa waxaan dul istaagi doonaa dilaagii gubay gabadhii xaaskiisa ahayd iyo xaalka qoyska ay ka dhalatay gabadhu iyo maxkamadaha maaweelada ahi halka ay derbiyada madaxa dadka oo dhacaya waayahay waxaan ku hormarayaa حسن عراي أما حسن أيح حد بكاو تغان مقع عارف تغادو أيام أنت اسم المريي همسي اتشكي أما ماشي دلان كي هو يدا لوقو دين شري ايه دقمة دا خودن هل كان إقلا داو أيضو وحفولحون أي كدا عيان عاقف لقليي نمان قناع ستانا يبسدين همسي اتشكي لوقو داويني هو يدا يدلان كا laguna quudinayay caruurta yararka ah ee danyarta ah waxaan maynaya waan iskala qabsanay xasan baa xaga galay xasan baa dhul gatay xasan baa safaarad gatay xasan baa xero gatay shalay haddaad maqlaysay dhulka danta guud ay leedahay ee dadkii deganaa meesha la yidhaahdo damdamiska ka soo baxa lahaa dan guud baa u baahane waa tanaa dantii guud laftigeedii oo la liqay dhulkan hadda cagafta la geliyay ma aha dhul shacab deganaayeen ma aha isbitaal baa ku yaalay MCH MCH waxa la yiraahdaa meesha dhallaanka iyo hooyada lagu daryeelo caruurtana lagu qoydiyo hooyooyin ku umuraan ayaa la yiraahdaa si bilaash oo lacag la'aan ah hay'adaha NGO-gaahi dawada siiya waa taa degmada hodan halka MCH bay lahayd oo free ah lacag la'aan ah oo hay'adaha caalamku ku bixin jireen adiyaal ku reebaalki fan ku bixin jireen asagiina waxa la yiri wiilal baa gatay hotel bay ka dhisanayaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh cagaftaa la tagtay waa kuwa hooyooyinka deganaa ilmadu gobolaynayso hal midaan idiin sheegaya Soomaaliya hadal ku sidheeran may xasan cambaarayntiisa iyo wax ka sheegiisa macnaheedu waa mas'uul xasan wuxuu taagan yahay maxal hadal ma wax iga qaadaya ambaar ma wax iga qaadaysa wax sheeg ma wax iga qaadaya inaan lacag helaan muhiima intaas wax istaagan ibaan ii sheegay hadda kadib ifan ba hadda wax dooranaysa waxa doorata ana ogday kan ba inay doorano lacagtiisu dooratay haddana weligiin yaalihiin qofka CV-giisa dib u raac qofku bulshada dooranayso qayb weyn bay ka tahay inaad hadda asaga aqoon inaad dib u fiirisid aasaaska noloshiisii muxuu qofkaan ku soo koray noloshaada aaskeedu waa ilaa dhammaadka ay doo soconaysa tusaale ahaan haddaad xaafad ragaastay baaba'day gaajo lagu dhimanayay dunida xoog aad ola qabsatay haddaad ku soo kordhay kaa hari mayso gaajadii baad u jeedaa adaa arka faqrigu waa labo waa mid asoo ku arka iyo inaad u aragtid adduunka waxa ugu daran faqriga inaad u aragtid baa ugu daran inuu asoo ku arko wax macna kuma jiraan lacag laan haysaad laakiin haddaad adigu aragtid saa suuqeeda ka carar wax kasta qaan xagga geli
islaantu carruurtu naagtu hooyada ayaydaa wuxuba tuugay noqonaya wuxuba afartay ku qaadayaan waxay arkaan afart family go dhan ila gaasho ay kacayaan xasan marka aaskiisa hore baan raacay waxa la ii sheegay oday curyaana dhalay dhaqaale fiican ma haysan reer baaba uu kusoo koray gaajadii uu jeedaa wixii uu ka fakanaya marka ma buuxsanayo ma dhargayo never ma dhargayo ma buuxsanayo buntland meesha la yiraahdo ninba madaxweynka Siciid Dani baa yahay weliga ma qashay xarun gart weliga ma qashay buqcad xarxaad weliga ma qashay hadii la ku reeyay wasaaradda soo mari weliga ma qashay xaraaq ciidan buu liqay maya dib u raacsi fiigis كم تبدأ على هاي سكوت شيء ده قف كستاهي والله بيدي شيء مي دي برا فرماج مي دي برا سيفيس دي برا فرماج مي يا رجع هذا خير وكره دي برا تبغى يوم بكرة شيء ده شوف شريف تبدين هاي استوى غيروا أصحاب الدين تكاد نوام ولا يقول شيء ده تبغى دين أنت بقى غيره ولا سورية تبغى يوم بكرة شيء ده adduunka madaxda aan Soomaali Afrikaanka ee aan musuqmaasuqa ku dhaqmin ama aan wax isdaba marin ee aan tuugo ahayn waxa weeye kuwa xaafadaha dhaqanka soo jeeda qofku hadduu xaafad kulul oo qadaama dhargaana ka soo kaco wixii dibda ma hawl aan bislay markaasuu gabalay wiilow ayeeyo eedo waxa uu leeyahay xaqaat waa kamaanta waa MCH way waxaa yaabaa afartan uu ku fadhiyaa yaabaa ilaa 60 dawlad maxaa sabra MCH maantana xasan baa nafta uga maarin waayay bal nafta hayso magaranka xasan lacaglaan hayso shay kana ma shay laakiin mustaqbal ma ka fakaraya ee gaashaan ku soo laaba xawsi ka fakara hadda ka bacdi qofka CV-giisa baar qof xaafad laban ku soo koray oo aan fahriga asagu arag doort inta saayilay لو كان هذا كذا عبوس الأيام ما حسن إيوه توب بعد هاي وحنا كلا قاعد ميانه كيف يدور والله صح قالوا لا يدور استاهل حوي صومالي مركز شوكتين قالوا كبنت لاني يستفيد كيو كوالد حساس يدي ما أقول لك يا مركز شوكتين صوماليا هدي هو يديه عدالة ده واحد يعني عدالة صوماليا تعالى هدي له صور نجسي صور أرتيست صورنا أما واحد كان بحساب تصالح كان بحي أو شرح بالوي قيح بالوي قيح عدالة الصومالي صور كان كوكاي ويلك الأسرة ياهي وويلك قبي حاسي وقبي وويلك أورو هايدو المناع على سكسدي متك أويانا وكيل قبي قبدي أصبو دلاي وإنت تصنع سكري وبيهي سأهي نيكي اللي قوي اوكي صار بقى السينية ما اللي دحنا على السوتاج هذا ويدين نمنا يراه او شركات هاي رئيس دورنا او ديلي نيجي نحصلها يدين اقلبوها ايغنا هبل كبير بها هاي محكمة على كيري قرار لو صاحين wax qiraal ayaa madidin kaas madin mutaagna laakiin rag la socday ayaa qiraal ku muujiyay qaab ku dilay wax sheegay diltooda hebel bas shoote biiw wala gudbi halkaas waxa loo gudbiyay tirka okay Sayyid Ali walaalkay Sayyid Ali waxa uu qiraal leeyahay inuu naag sugay guriga wuxuu taagan yahay guriga anaa dab ku dhajiyay dabkii guriga gabadha ma gooyay marka bas ma gubin bal waxa khiyaaliga ee maxkamadu maxay tiri maxkamada labaad saddexaad rafaa wararta ninku ma yiri dabkan guriga anaa qabadsiiyay mis waa beentay dabkani aad guriga qabadsiisay ma yahay dadka gubay gabadha miskiinta ha qiraal ma yahay Sayyid Ali Samaan inuu dabka tinta kaga dhajiyo ama arinta ayada kaga dhajiyo iyo inuu jooriga ku jiiftay ku dhajiyo maxay tahay farqiga u dhaxeeya ninka inuu wax guuray gabadhi waa gubay gabadha arruutiyo markuu gabadhi gubay arruut soo saaray xagee ka dhac waa marmarsi haddii run la sheegayo wiilkii Saleebaan ee la yiri inaad gaaru dilay wuu xabad buu ku dilay sidii ninkii uu dilay
nin dilay buu ahaa maxkamad baa la soo taagay dhab wiilaas uma garan waxbaan dilay ma oran xabad baan riday ma oran nig baa la soo marsiin waay wiilaas waa muqaatifo iyo isagaa dilay dhaba waa lagu dhufta inta la socotay qaybna xarig kana maxkamadda darajada koowaad darajada labaad waa maaweelo sababtoo ah odagaan iyo gabadhiisuba waa shiikhaal waaye waa shiikhaal kii saleebaan ee la tooganaya loo togtana lahaa abgaal budrey maxkamadda ninkii fadhiyey qalinka ridayey ee xukumayey nin abgaal u ahaa shuutu ahaa marka haddii lu yidhaahdo waxaas sifaasiin usoo mara haddii lu yidhahdo soomaaliya cadaaladeeda soomaaliya kale aan ku galgalan soomaalida kale xoogaa xishoodaa ku jira xishood baa jira soomaalida kale haddii lagu yidhaahdo muqdisho iyo xamar cadaaladeeda sawirkaas qaado qofka u dir inaad xoqodhid iyo inaad ka sheekaysida looma baahna dulmanaha ooyaya iyo dilaaga qoslaya muxuu ku qoslaya is weydiis markii anoo toogasho ku xukuman aan ogahay in la i tooganayo maxkamadda soo taago markaas xiliyo kasta geesi kasta oo tahay ma qoslaysi geesi haddaad tahay bal waxaa ka qoomaynaysaa dhibkii aad geysatay sharaf darrada kuu timid day sharaf darraadii kuu timid xaaskiisii uu gubay shil waa dhacaa hadda ninkaas muxuu ku dhacay melihi sababtoo ah shil baa jiray shil waxaa ku yimid qadar alle ku timid dan buu galay ninkaan way dhacdaa waxaan dad baa waalidkood dilay hooyadii aabiga kuwa dilay ma garanaysaa naag uu qabay oo kale dilay kuwa hooyadood iyo aabahood dilay marka way dhacdaa laakiin ma qosli kadhidoo dareenkaagu haddii dareenkaagu kuma siiniya haddaad damiir leedahay falkaasoo kale meesha noocaas oo jooga inaad tiraahdi sababtoo ah damiir baa leedahay khalad baa gashay damiir baa kaa dhacay xag allo kaaga dhacay xaggii adduunkaad ka ceebowday ku fashilantay adoo dhan baa keenay waalidkii baa ku hortaagan sandagaa iyo sadohdaa baa ku hortaagan oo aad gabadhoodii gubtay carruurtii baa ku hortaagan aad hooyadood gubtay marnaba qosol waxa la yidhahdo laakiin kuwa waxay ku leeyihin laandheera dhalay wiil habar gidira waaye muxuu qosli waaye war qabiilku meelan la geyn mayo war qabiilku waa la tacaarufo war cadaaladda ka muhiimsan qabiilka cadaaladda ayaa ka muhiimsan qabiilka kaa ogaan waxba qabyaaladda ku gabanin war gabadhaa la dulmiye biri adig kugu imaan kadha hooyadaa biri la dili karaa aabbaha baa la dili karaa xaaskaagaa la dili karaa xaafadaada iyo cadaaladdarana geli kadhaa laandheera waaye inuu qarciyo damiirkaa kuma siinayo laandheera waaye indhagahaagu maqlaa laakiin hadalkaa kuwa qoraya laandheera waaye habar gidir waaye ku qoray iyo odagaa miskiinka waxyaalaha ka oysiinaya oo ooyinta la gaboo leeyahay meesha dhexdeeda waa dareemi kadhaa ma aha in gabadhaas la dilay gabadhiisa odagaas waxaa laga yaabaa waa 60 jir waxa laga yaabaa ubadkiisii ama ehelkii boqolaal inuu qabriga dhigay asagoo ehelka dhigay dhimashada ka dhaxaya maaha laakiin waxa markaad aragtay cadaalad darrada ninkii halka la soo taagan dadka anaa daaray anaa guriga gubay gabadha guriga ku dhex gubatay marka anuu joodariga iyo dirinta rabay inaan dab ku dhajiye gabadha ma rabin inaan gubo kasaa leeyahay waa sax de waa sax waa sax gabadha inuu gubo ma rabin dirinta gubi leh war dirinta korkeeda gabadha ma gubi dirinta halkaa haddaan qori qaato oo aan idhaahdo ninkaa ku dhufo day halkaa ninkaa dam aan siiyo oo ay ninka sokeeya ku dhacdo anigu qorigaa ku rid